asxaabay way salaamay fadlan walaashayda iyo walaalkayga shalay waxaan soo dhigay youtube-kayga maraan sportiga ka hadlay balse sidoo kale waa inuusan khayrka xitaa ka maqnaanin. masaajidka waa inaan la yimaadaa, qur-aanka waa inaan la akhristaa, waa inaan salaadaha lagu tukadaa, waa ina ilaahay lagu xirnaada. subscribe saaro channelka si aan markasta ula socoto. waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad ka heli doontiin kitaabkii ilaahay iyo masaajidkii oo aan joogo keligayga ayaa ku sugan. xaafadeyda waxaa uga imaaday inaan soo fiiriyo waayo waxaa dhacday xanuunkii sida u bilowdayba masaajidadii waa la xiray, marka inaan soo fiiriyo oo arko ayaa u imaaday. masaajidkana waa inaan markasta la yimaadaa, waayo adiga faa'iido ku tahay. naftaada kaliya maaha inaad guriga iska joogto, cuntada iska cunto. masaajidka inta yaraa timaado waxaa laga yaabaa inaad waxyaalo badan kaa degaan. iska daa adigoo xaj ka tegay, xajkana si fiican bayba kaaga degayaanba, waayo shar iyo shaydaan iyo balaayo ma soo geli karto masjidka ilaahay haddaad tahay qof ilaahay si fiican ugu xiran. wax kuu soo dhawaanaya ma jiraan. hadda intii yaraydaan joogay masaajidkan qur-aanka akhrisanay qalbiga ii qaboobay. diinteeda, dhaqankayga waan ku faanaa, waxaana ku faraxsanahay. waxaan jecelahay kitaabkayga anigoo midigta ku haysta inaan dhinto. aad baa idiin salaamayaa. aniga isboortiga oo kaliya ma sameeyo, qur-aankayga waan akhristaa, guriga waan ku tukadaa. asxaabta channelkayga ku xiran oo dhalinyarada aniga asxaabtayda ah oo inta kubadda isla ciyaarna iyo kuwa kaleba waxaan ku waaninayaa khayrka oo kaliya ha loo jeesto. haddii kale dunidan iyo shaydaanka meel daran bay kaa tuurayaan. dunidan waxaa rabti waa qabsanaysaa, balse waa inay ku ahaataa mid aad maalmo joogayso kadibna aad ka tegayso. dunidan anaga waxaan ka nahay arday iskuul jooga oo kale. ardaygana iskuulka markasoo u jooga markay u dhammaadaan xiisadaha oo imtixaan maalintuu galayana laga qaado, hadhowtiina uu imtixaanka u ku baaso ama natiijada baa la siiyaa. marka ilaahayna dunidan wuxuu ku keenay waa saas oo kale. marka inaad ka shaqaysato kadibna qabriga la aado, kadibna natiijada lagu keeno. waa sidaas. qabriga waxaad ka shaqaysata baa inta sida dunida aad
imtixaanka u galay sida ugu baasaysid baad horumar uga gaaraysaa qabrigana sidaad ducooyin iyo khayr iyo quraanka iyo ilaahay ku xirnaanshihiisa iyo salaada aad u sameynaysid baad ilaahay ku asturaya laakiin waa inaad ahaataa qof is asturay asagu si ilaahay ku asturo dadka ummadda dadka islaamka dhiigooda daadinaya waxa uu sheegaya ha loo shargareeyo inay iska dhaafaan qof baa waxaa lagu soo dhaadhicinayaa orod qofkaas dadkaas isku soo qarxi bulshada dhexdeeda bal fiiri naftaadii baa adiga halagaysaa waxaa kuu sii dheer dembi kalaa sii gashay oo qof kalaa naftiisa sii dhibaateynaysa taadii waa ka tagtay tiisii waa u qoonsatay dhiiggiisii baa dhulka ku daadisay diintaadii dhaqankaagii waxaasoo dhan waxay noqdeen meeshaa ka saartay eber baa ka dhigtay kumaada dhaqmin masaajidka hadda maanta haddaad gasho sheekhyada way kuu sheegayaan dadka islaamka ayoo dhan way idiin sheegayaan marka asxaabteyda waxaan kula talinayaa inta youtube-ka ku xiran iyo dhammaan dadka arkaya youtube-ka inay masaajidadana imaadaan isboortiga ma xumo waa la sameeyaa balse ha ahaado wax dunidan ku eg marka ilaahay xaggiisa ha loo bato intaas aniga iga waana ah intaasaana rabay inaan idin sheego haddaad ka heshana like saar subscribe ku xirnow insha allah waa soo badin doonaa anigoo masaajidka imaanaya anigoo quraan akhrinaya anigoo xadiis dhagaysanaya guriga anigoo xitaa waa soo duubaya markii masaajidada jimcaha soo socda waa imaanaya waan duubaya marka wanaagga ha loo bato intaas anigayga waana anigayga maysan ahayn inaan intaa masaajidka imaado aan iska duubo kadibna aan xaafadda iskaga laabto waxaa waaye waxaan u imaaday ba aniga mid waxay ahayd qalbigayga ka timid inaan quraanna ku akhristo bal soo fiiriyo masaajidka saasaa u imaaday haddana waxyaalo badan baaba ku arkay oo halkaas warqadaha ku dheggan waxaa ku qoran ha taabanin malaha qofka xanuunka qabaybaa malaha taabtayoo marka saasay ugu qoreen ha iskugu dhawaanin marka asxaabta aad baa idin salaamaya xanuunkana ha la iska ilaaliyo guryihiina ha la joogo laakiin masaajidada markii la yimaadanayo yaa la keenin waxa banaanka ka dhacaya masaajidka la keenin sheekh baa maanta ka maqlay waa inay masaajidka wixii laga sameeyo waa inay banaanka u baxaan oo dadka loo sheegaa oo muslimiinta iyo dadka dhammaan dadweynaha si u bartaan aad baa idin salaamaya like-ta subscribe-ta share-ta maanta hadduu nin qabyaalad ka hadlayo uu soo faraysan lahaa meeshan waa loo kala kicin lahaa balse nin diin ka hadlaya nin diin ka hadlaya ama nin quraan akhrinaya ama nin salaad tujinaya ama nin horta aniga dunida waxba kagama doonayo balse waxaan jeclahay intaan saaranahay inaan dadka wax u sheego aad baa idin salaamaya habeen iyo maalin iyo subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe iyo waxay ku tahay ha ku wacnaato
مع السلامة وأيضا سلامة إلهي على حرناد أنا قول إلياس عبد الرحمن إنك قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.